inuu jiifto diiday oo hadduu jiiftaba ooynaya waa iga jiiftay dhahay waan arkay oo waa nin bay u dhacday gabar isla jiif noqol inta badan khasaarahooda way badiyeen gabadha markay dheer qaadato kilida xanuunayso saaba habeenkaas way boolanay qalbigeyga ama nafsadeyda hal qof bay jeceshahay oo qanacsan tahay isagana sidoo kale uu qanacsan yahay masha Allah. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. kusoo dhawaada maalin kale iyo wajh cusub maanta barnaamijku ka duwan yahay kii hore waa kaftan iyo maxaa la dhihi jiray qarax Naciima Maxamed Saciid oo kusoo dhaweynaya kusoo dhaw xogsahan iyo xiiseeda gaarka iyo walaalka Xuseen Jeela wadaadiga ee barnaamijka saas waan dhawahay Abu Xuseen oo kusoo dhawahay waxaan idin leeyahay asxaabta assalaamu alaykum warahmatullahi وعليكم السلام أنا أيك وكيل وكاد دفني نعيمة وحاول قبلها تاكتين وعلم بدنتي حضرنا عسكرتها بركة بقالة بركة مريسين أركميسة قبل حد يرى تحقابناتو قبل البكاب ديري حالتها صرت كتب بيس محاول إن كورنا أبو أنا لا بيجي لو صعب ملين أنا هجلو ساي كبار عدارك إيه كبرها إن مستوى من قبر والبق أو تاوي حرتام كمارنتو سو قبره يقرحيان هدي قاونتا هدي ديرتا كوري وقاضيان لبسك يستلك وصحيان لما مارما وي لكن سوكلبا دنكيغا داكالو انو كما مارما كما هان كرو every time يغلا مغالك ku aada يغلا kabadagsan dhaha may heliyo ma kala kabadagin gabdhaha waxa maleynaya inay ilmo yihiin okay inta badan khasaarahooda way badiyeen gabadha markay dheer qaadato kilida xanuunayso saaba habeenkaas way boolanay walaa aniga wax xanuun ma isku arko koodhay every time waa xirtaa laakiin gabdho ka sheeganayo kali xanuun وارجع لكن قبلهاس بيعبد يستن على ملك بيعبد ولا بيبدل اوكي واسنت هاي سؤال شو سؤال كفتن هذين ستوس كو قصيصه تنبو قصيص لك ديب جواب غديسي يا انا عشان هاي حاجه جير ان قبلها كون شريان ماما وحاجه قبلها كون شريان على كلا قلتنا ما كون كحل ما ودا شريان مسك مرمر واي واسي عارك والله maxay ahayto ani hada iska hadlo aniga sada maahan waxaan la socdaa adiga dhowr toban qof baa ila soo sheekaysato ila hadasho isla kaftanaa laakiin qalbigeyga ama nafsadeyda hal qof bay jeceshahay oo qanacsan tahay isagana sidoo kale uu qanacsan yahay masha Allah marka gabdhuhu waxa maleynayaa inay la mid yihiin oo mid walba ay xayn wado laakiin hal mid qalbigeedu la jiro markay wiilasha ay baagamoodin oo ay shaqeeyeen waxa dhaadeen biyo oo ila xayna ku xataa shaqeysto waa fadhisaa sax markuu shaqo hela oo shaqeysanayo xogaa biisiga jaamkeerna oo jiray waxa dhaadeen aanay fursad u haysid maxaa ku yiraahdaa shaqadaada ku cad maxaa ku yiraahdaa waxyaabahaas dhaadeen intee kala fakanaad walaadii markii baagamoodin lahayn ma haysan kartiin markii waxa ku yiraahdaa la shaqeynay xadada jaw waa jaam greystay busy tahay oo waxba kala jira walaa taas buu arin kale tawaay koori aniga fikrad ahaan hadan dinkii ka fiiriyo kolba ninkii haduu mar uu guriga joogin oo xamaalinayo magaalka ku jiro soo shaqeyso soo xamaalo baa leeyahay gabdho waa arkay iyagana dhahaya inuu jiifto diiday oo hadduu jiiftaba ooynaya waa iga jiiftay dhahay waan arkay oo waa nin bay u dhacday gabar isla jiif noqol markaas waxaan arkay gabadhii isku ooynaysa kaligeed baa kugu dhacay saaxiibkay baa iga jiiftay suu jiifanaya aniga waa soo jeeday marka gabdhaha way jiraan in aan shaqadaada ku cad laakiin waxaan dhihi lahay hadduu bashaqeysanayo iska xamaasho waqti oo shaxmaa magaalka soo xaroodo soo dhamaysto waqtigiisa si asagana shaqadiisa ka hor istaagin waa dhihi lahaa duuba guriga ku jiifin okay waxa jiro isku badan oo maxaa ku yiraahdaa inta badan anaga dhalinyarada Soomaaliyeed guurka inaa si fudud loogu degdego gabadha ilmo lagu furo maxaa ku yiraahdaa dhibaatooyin fara badan ay halkaas ka imaado bal adiga qoorna xaalkaaga haduu
wax inta badan isku caasabaan waxa waa gabadhi markii gabar kale la guursado tusaale ahaan adiga naciima ahaan ninka hadda aad wada socotina sheegaysa adduunka ugu jeceshahay mid kale oo keenay ya hooyooyinkii carruurta inuu soo badsaday macnaha saxa kuma qaadan lahayd mase waa waxaa dhihi lahayd ma aniga maadaama liiga dal doorsaday jidkaan qabanaya si inta badan baan aragnay mase waa ku haysan lahayd may horta lababa waa jirtaa marka qofka adiga aad jeceshahay oo nafsadaada ayna ka maarmin oo dadka jiri karin wax alaala wuxuu wato ay dhalaxtu haduu wato ku qaadanaysaa laakiin marka aad anaha jaceylku suu oo haaf ku yahay oo haaf jaceylku haayo wax barbareyn ma lahan saaxiib calaada mid keensatay xabad kala oo cusbahay oo kala wad marka waana arkay jaceyl dhab haduu jiraan jaceyl lagu jiro may qofkaaga waa ugu dul qaadanaysaa soo aniga ninka aan jeclahay maanta haduu xabad kale keenso qoftaan nafteeda kama maaranto Soomaa ayadana markaa ku qanacsan tahay oo kugu rabaa taaganahay maadaama inuu nafteeda ka maarmin aad iyo aad u tahay waa kaaga mahadcelinayna barnaamijka naga soo aqoonsha cusubada ku casuunay akhyaaray intaas aan kusoo gabagabeynayna wareysigii gaabnaa aan la yeelanay kaftanka iyo arrimaha dhalinyarada isugu jiray naciima waa ku mahadsan tahay inaad maxaa ku yiraahdaa naga soo qayb gasho intaas ayaan kusoo gabagabeynayna saaxiibayaal aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum.